وهاي داوديال ومر كلي برنامجك وهاديد aad kala socotaan Astaan TV inta lagu guda jiro bisha barakeysan Ramadaan barnaamijka waxa idin la socodsiinaya aniga Yuusuf Salaama barnaamijka aad buu xiiso badan yahay waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysataan aqoonta barnaamijka uu xambaarsan yahay ka faa'iideyso wacan daawasho wanaagsan bal aan u gudubno barnaamijka iyo qaybqaatayaasha barnaamijka hadii halal doonaan jawaabaha saxda su'aalaha yar ee fudud aan soo diyaarinay maanta waa tahay وهاي داوديال بل كقيب قاتا برامج كينا عن ميكروفونك ومقعي سيد برامج شوارك مقعي عبد القادر محي الدين أبو بكر أيا لها عبد القادر حوالي أيامكم مقع ديراي إذا عدنا وأدي بان نقوم هاد علنا يا ديقو سؤالا يويديناي عبد القادر سيدا برامجك وبرامج نصيب ونبرك أتقبستيد سؤاش كجرتان كويدين دونا هدو بكر على نقضو وهدي جوابته صحت على شوف سؤاش أن كويدين جوابته هذا وحد لها أبال مرين تاس وقوت لك شاستان تي في ولي بسوم برامج كتاب جلنا يسا نمبر كنصيب كاجا واتقبسان لهيد نمبر هذا وحكي بلعبنا إنكو إلا يتدوى نمبر كنصيب كاجا نمبر كتدوات برنامج نمبر كتدوات برنامجك waxaa ku jira waa imisa culayska maskaxda looda hadii aan su'aashaas isku dayo waa 7 kiilo oo gram ma asanta Abdi Qaadir bal samaad haleelin jawaabta saxda waa kaaga mahad celinayna ka qaadashada barnaamijka isku dagaayo wanaagsan aad iyo aad ma asanta waa tahay ka qayb qaataha barnaamijkeena hadii aan mikrofoonku waciyo magaciisa iyo sida barnaamijku ah magaciisa Abdi Xakiin Abdullaahi Maxamed عبد الحكيم كسودو برنامجك سيدا aad u aragto bal nasiibkaaga iyo numberka aad qabsan lahayd insha Allah waa harjeena nasiibaan numberka aad qabsan lahayd ku nasiibsanaysa adiga number 15 koo ila 7 waa numberada koo ila 7 soomaan waxa qabsana 6 number 6 waxa ku xusan waxa sheegtaa suurad qofkii akhriyo u shafaaca qaadaysa ama suuradda u shafaaca qaadaysa qofka akhriyo suurad qofka akhriyo oo u shafaaca qaadaysa suuradaas isku dayo hawaaye suuratu al-imran ma santahay bal samada halin waa tahay ka qayb qaataha xiga barnaamijkeena aan ku soo dhaweeyo mikrofoonka magaciisa iyo sida barnaamijku arko barnaamijka aad baan u faraxsanahay magacii waa Maxamuud Abdi Xafiid Sheekh Ibraahim أنا عبد الحفيد نوجدنا هنا أتفرح سنتهاي برامج كقيب قادة شيء سنة أتفرح سنتهاي وحاسلين هاي نك سؤالها أو دين أبوك جواب الربا جوابها حساب السنة كران جيان كجوابها إن شاء الله كران جواب نعبد حكي نسأ شكتب مرة بدن بتخازين برامج كا بل سووا دمبين نصيب بعطوية لتك ما حد لا هاي إن سؤال على سؤال إن كجواب سكودا إن شاء الله إن كجواب سؤال هادو بكر على نقطة نمبرك aad qabsato su'aasha ku jirta baan ku weydiin doonaa oo barnaamijka macnihiisa waxa weeye su'aasha lagu weydiinayo inaad adigu dooratid nambarada nasiibka ay miiska noo saaran waa number 2 ilaa 7 nambarka nasiibkaaga number 6 waxa ku xusan waxa sheegtaa suurad u shafaaca qaadaysa ruuxa akhriya ama suurad u shafaaca qaadaysa qofka mulk ama tabaaraka alladhi bi yadihi al-mulk suratul mulk ama tabaaraka suratu tabaaraka عد قادر هذا ما على شيء جواب صاحب السؤال وحد ثلاثة وهل مركز أول مرينا أستاذ هذه وحد في والله ما قالني وإلهي مركز حلف كي كريم في لنا إن شاء الله وقت هاي داود يال سيدا دون جدا بك غابغاتا أنا أدو فرح سنامرك وبرامج كسوق بقلي وأنا في لنا إنه هليل دون جواب بعدها بس سكوك الصلاة مركان أركي حتى جواب الصح ده وهليلي سؤال شو وديني سؤال شو كجرت نمبر كل حد وحنا هالشيء صورة الشفاعة قاعدة الروح آخرية ونهالي وجواب صح هو سورة الملك أما تبارك وحنا ليها بالمرنتيس
maadaama uu ka qayb qaata haleelo jawaabta saxda ah bal aan guddoonsiino hadiyadda ugu talagashay astaan TV iyo weliba sumag oo barnaamijkan taabagelinaysa oo cabdiqaadir bal noo soo yara bixi waxa aad ku guulaysatay si aan kuula aragno maxaad leedahay marka alxamdulilah ilaahay maadkiisa ku faraxsanahay anaga sidoo kale waa tahay daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii oo hadiyad oo aad kala socotaan astaan TV maanta aad buu ugu gedisan yahay maalmihii hore bal ka qayb qaataha xiga aan mikrofoonka u weeciyo magaciisa iyo siduu barnaamijku arko bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdiqaadir cabdilaahi axmed waana soonkii labaad iyo su-aashii labaad lagu weydiin doono insha allah iyo waxaan rajaynayaa guul insha allah cabdiqaadir maadaama soonkii labaad tahay oo markii labaad aad ka qayb qaadanaysataa barnaamijkan horta haddii aan dib kuu xusuusino ma xusuusataa abaalmarintii hore aad ku guulaysatay iyo su-aashii aad haleeshay su-aashii lagu weydiiyey aad ku guulaysatay wuxuu ahaa waxaa sheegtaa way ahayd sheeg maskaxda maroodiga inta kiilo ay tahay I don't know 7.5 inaa umaynaya 7 bar inay ahayd baan umaynaya alaabtii la siiyeyna waxay ahayd wax dee xaaskaan u geeyo oo gabadha waxaan aad u anfacaysay barafuun iyo alaabo iyo ookiyaal adigu wax aad u wanaagsan bay horta gurigayga anfacay guriga kaaga anfacay kan maxaad filanaysaa leedahay waad heli doontaa iyo si lamida wax guriga anfici doono insha Allah si lamida wax ma ka xusuusataa hadaladii aad tiri inta aad su-aashii hore ee sanadka hore aad ka jawaabin hadaladii aad tiri wax ma ka xusuusataa astaan TV oo mahad celiyay barnaamijkan sidaan u arko barnaamijka waliba barnaamijka marka Allah marka sida loo afurko qofka ugu horeeyay markuu soo galay uu daawado inaan ayaan aaminsanahay haddii aan ku yaro xusuusiyo waxaad tiri anigu waxbaan bartay dadka wax bartay baa mar haddaa maskaxda dib u eego inay saataan aaminsanahay ama aan filayaa baan idin moogta waa tahay haatan weli waa barnaamijku waa sidiisa oo nasiibkii uu weeyay nambarka aad qabsatay su-aasha ku jirtaan ku weydiin doonaa hadduu eebbe ka raalli noqdo nambarada hadda miiska noo saaran waa nambar 1 2 3 4 5 iyo 7 nambarka nasiibkaaga lixaad waa lala baxay labaan eeganaya insha Allah wax wanaagsan haddii aan ku fiirino lambarka labaad waxa ku jirto su'aal ah sheeg qoomkii loo diray ama reerkii loo diray nabiyullaahi saalax alayhi salaam haddaan isku dayo qoomku way badnaayeen caad baa kamid ah thamuud baa kamid ah qoomuluud baa kamid ah qoomkii nabi saalax loo diray baa nabiyullaahi saalax nabi kasta qoom baa reer thamuud inay ayaan aaminsanahay reer thamuud ma hubtaa waan isku dayay ama hubee maxaad filaysaa jawaabtaada inay sax noqon doonto iyo inay qalad noqon doonto maxaad leedahay aslaan baan ka rajaynayaa waxa sax iyo qalad labadaydan ka eegay insha Allah aydaad ka eegaysaa waa tahay daawadayaal ka qayb qaatahan su-aasha aan weydiino oo sheeg oo su-aasha ku jirta lambarka labaad oo sheeg qoomkii loo diray nabiyullaahi saalax jawaabtu ka bixiyay waa mid sax ah waa reer samuud waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay astaan TV waa tahay daawadayaal maadaama ka qayb qaataha oo haleelay jawaabta saxda su-aasha aan weydiin waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay astaan TV iyo waliba sumad oo barnaamijkan taabagelisay waa mahadsantahay shukran baan leeyahay sanad iyo sanad oo bayla adduunka gaadhsiina waxaan rajaynayaa mid ku xidhan waxna ka faa'iido waxna ka ku guuleystaan noqon doono insha Allah waa mahadsantahay manina tusi kartaa waxaad ku guuleysatay si ay kula arkaan daawadayaasha ayagana waa mahadsantahay shukran soo dhawa waa tahay ka qayb qaataha xiga barnaamijkan aan mikrofoonka u waciyo magaciisa iyo siduu barnaamijku arko ku soo dhawo barnaamijka oo hadiyad astaan TV waa mahadsantiin baad astaan TV waan ku dhawahay barnaamijka anigoo ah magacayga maxamed muumin ibraahim aadan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan waa maalintii koowaad aan arko inaan ka qayb qaatona aad u mahadsantiin baad astaan TV waan dhawahay annagana ku faraxsanahay inaad qayb ka noqoto barnaamijka oo aad nasiib u yeelatay ka qayb qaatayaasha maanta bal nambarka nasiibkaaga ah nambarada hadda miiska noo saaran waa nambar 1 3 4 5 iyo 7 nambarka nasiibkaaga ah aniga waxaan rajaynayaa lambarka inaan qabsado lambar 7 nambar 7 waxaa ku xusan waxaa sheegtaa waa imisa culayska maskaxda looda waa su'aal adag waan isku day doonaa waxay ii noqon kartaa 2 mitir camal waa mahadsan tahay isku daygaaga balse baada haleelin jawaabta saxda haddii aad dib kugu soo noqdo 2 mitir aad tiraahdo culays maskax 2 mitir ma noqon karaa culayska mitir baa lagu fiid ilaa hadda culays lagu cabirin culayska garaam iyo kilogram waaye balse isku daygaaga waa kaaga mid celinayna barnaamijka sida aad ugu soo dhiiratay waa mahadsan tahay
waa tahay ka qayb qaataa xiga barnaamijka aan ku soo dhaweeyo barnaamijka hadiyada Astaan TV aan ku dhawahay magacayga waa Xamza Cabdiqani Cali Salaad waan ku faraxsanahay barnaamijkan inaan soo qayb galo anigoo agaaraha iska degan marka halkaas Xamza sida aad ka warhayso barnaamijka waa nasiib oo numberka aad qabsatid su'aasha ku jirtaan ku weydiin doonaa hadduu ay bakar raali noqdo haddaba su'aalaha miiska ama nambarada miiska noo saaran waa number 1 3 4 iyo 5 maya 5 ha iyo 7 numberka doonan karo waa number 5 number 5 waxa ku xusan waxa sheegtaa saxaabigii ugu horeeyay ee islaamka ah ee salaad jumcad tuji jameeco ma ho salaad jumcada waa khudbada علي بن أبي طالب ما سنتها بل سمعت هلالين جوابت الصحة أنا كأجي مهد علينا اسكو دقيقة كغلا واتهي كقبقاتها حقا برنامج كان هو هديت عن ميكروفون كو مجلس سيدا أو برنامج كو أركو كسروا برنامج كو هديت أستان تي في برنامج هذا ودبي لما أستان تي في مجلس وماح حاج مهدي ماح نحاول تاوملينا مقع عانا aqoon-yahan caan ah Cabdiqaadir Nuur Maxamed sidoo kale waxaan rajeynayaa bal dhankaas Soomaaliga inaad ku fiicanta والله وكفيعنها بس لكن أخوات مقلا ومرة قارح وبعنتها وحلا ده نصيبه وضتان miya waa tahay sida aad ka warhayso barnaamijka waa nasiib oo numberka aad qabsatid su'aasha ku jirtaan ku weydiin doonaa haddii aad bakar aad noqdo maxaad filanaysaa adiga su'aal noocaas aad kugu su'aalaysaa aad isleedahay والله waxaan sidii karaa su'aal markaas aniga aan isleeyahay waa ka jawaabi kartaa aan filaa inay igu su'aadi doonto waa tahay numberka nasiibkaaga ah numberada hadda miiska noo saaran waa number 1 3 4 5 iyo 7 numberka nasiibkaaga ah 7 caawa rajeenayo in guriga si fiican lagaaga fiirsado guriga si fiican lagaaga fiirsan doono CR7 aan u diri doono fariinta CR7 fariinta u diraysaa caawa hadii 7ka aan ku guuleyso Real Madrid way badin doontaa laakiin hadii aan ku guul dareyso waxaan leeyahay dhinaca Maxamed Saalax way aadi doonaa waa tahay waxa aad sheegtaa number 7 waxa ku xusan su'aal culays xambaarsan waa maskaxda looda culayska maskaxda looda wallahi maskaxda culays 25 kilogram I think saas oo malana waa maanta ma xisku dagaaga balse baad haleelay jawaabta saxda halka qayb qaata xiga barnaamijkeena waa hadiyad aan mikrofon ku waciyo magaciisa sida barnaamijku ah magacaygu waa Cabdiwaab Xasan Dhafe oo ku faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qayb galo oo markii ugu horeyso barnaamijkan aan ka qayb galo aad iyo aad aan u mahadsantahay balse in badan baad barnaamijka raadinaysaa barnaamijka in badan ayaan la socday oo aan raadinayay maanta xaafadeedii la keenay sida awgeed waxa fursad ayaan u helay waa tahay Cabdiwaab qoraxna ma jirtee maxay tahay sababta ookiyaalaha madow aad soo xiratay ookiyaalaha madow waa labis saaxiib istaalka lagu saxayaa xilli roobaadka xataa waa la xirtaa ma taageertaa xilli walba waan qaataa saaxiib waa ku baahsan tahay maxaad filanaysaa in lagu weydiin doono maadaama su'aalaha ay nasiib yihiin ama nambarada qaar aad u jeeday hadda sidaad kor joogto iyo nasiibkayga wax ii soo baxa ayaan diyaar u ahay numberka adiga dooran doona hadduu eebba ka raali noqdo nambarada miiska noo saaran waa 1 3 4 5 iyo 7 number 7 ayaan doortay number 7 inta badan waxa ku xusan ama ku jirtay su'aal culays ah su'aasha waxa ay leedahay waxa aad sheegtaa culayska maskaxda looda hadda isku dayo su'aasha jawaabteedu waa 500 gram waa 500 gram maxaa leedahay jawaabtaada inay noqon doonto ma mid saxan oo aad abaalmarin ku heli doontid mise sida asxaabta qaar ka horeysay aan ugu mahad celinayna ka qayb qaadashada barnaamijka ayaad inta badan waxaan filayaa in ay qof nasiib badan jawaabtaana inaa gartaa filaa marka adinka idin daayna waxay soo baxay hadii aan saxay hadii aan qalday su'aasha maadaama in badan dadka numberka ay qabsanayeen balse haleel la sanayeen jawaab saxda ah malli kara waa sii qishtood ayaga ka sii qisht may su'aasha waan u sii diyaar garoobay laakiin su'aalaha si garanaya marka sida awgeed ayaa numberka u sii qabsaday waa maasan tahay ka qayb qaatahan jawaabta uu ka bixiyay su'aasha uu weydiinay waa mid sax ah waxa uu leeyahay abaalmarintii numberkaas waxaan baarsanaa ama su'aashaas abaalmarinta ay xambaarsanay haatan oo guddoonsiin doonaa
waa tahay daawadayaal maadaama ka qayb qaatahan uu haleelay jawaabta saxda ah waxa uu leeyahay hadiyadda ugu talagashay astaan TV iyo weliba samaga barnaamijkan taabagelinaysa cabdihaab naga guddoon aad iyo aad u mahadsantihiin waa ku faraxsanahay inaa su'aashii li weydiiyay aan ka jawaabay oo jawaabteeda aan haleelay barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad u qurux badan oo in badan aan ka helay marka waxaan rajaynayaa inaa waxa marka xigto oo degmadeeda lagu soo laabtay inaa mar labaad ku soo ka qayb qaataan rajaynaa waa mahadsan tahay haddii alaabkan uu kaa cilidoobo 12 bil gudahooda shirkadda abaalmarinta bixinaysa ee sumaga waxay ku ballan qaadaysaa ama ku siinaysaa warranty 12 bilood ah waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatid oo baalkaagana dhaqaaleysatid haddii cilad ay ku timaadana aad u geyso waa wax aad iyo aad u wanaagsan waana ku mahadsantihiin waa tahay ka qayb qaataha xiga barnaamijka aan ku soo dhaweeyo mikrofonka bal magacaaga iyo sida aad barnaamijka u aragto nala wadaag magacayga cabdullaahi xuseen cabdulle daboole ilaaluuna nayso barnaamijkan weligii kama qayb gelin astaan dhagaa kama qali jiray maanta waa ku faraxsanahay inaan ka qayb galo inaad ka qayb gasho waa ku faraxsanahay annagana inaad qayb ka noqoto barnaamijka maanta barnaamijka waa nasiib nambarka aad qabsato su-aasha ku jirta aan ku weydiin doonaa hadduu eebba ka raalli noqdo nambarada hadda miiska inoo saaran waa nambar 1 3 nambar waxaa noo saaran 1 3 4 iyo nambar 5 nambarka nasiibkaaga nambar 5 nambar 5 waxaa ku xusan waxaa sheegtaa saxaabigii ugu horreeyay ee islaamka salaad jumcad tujiyo inaa isku dayo bilaal waa mahadsan tahay balse maad haleelin jawaabta saxda waan kaaga mahad celinaynaa isku dagii ka qayb qaadashada barnaamijka waa tahay daawadayaal bal ka qayb qaataha xiga barnaamijka aan mikrofonka u weeciyo sida uu barnaamijku u arko magaciisa iyo bismillaah wareen waxaa salaamay astaan TV salaan kadib magacii waa maxamuud daacad barnaamijku waa nasiib oo nambarka aad qabsatid su-aasha ku jirtaan ku weydiin doonaa hadduu eebba ka raalli noqdo nambarada hadda miiska inoo saaran waa nambar 1 2 4 5 iyo nambar 5 intaas nasiib waa naskiibis nambarka waxaa qabsanaa shanaad nambarka shanaad waxaa ku xusan waxaa sheegtaa asxaabiga ugu horreeyay islaamka salaad jumcad tujiyo wax kasab waa isku day haddaan isku dayo abubakar sidiiq haleele waa mahadsan tahay balse maada haleelin jawaabta saxda waa tahay daawadayaal aan ka qayb qaata xiga barnaamijkana mikrofonka u wiciyo magaciisa iyo sida barnaamijku arko cabdiwaaxid cumar cabdullaahi cabdiwaaxid ku soo dhawo barnaamijka hadiyada astaan TV oo ku dhawaada cabdiwaaxid sida aad ka warhayso barnaamijka waa nasiib oo nambarka aad qabsatid su-aasha ku jirtaan ku weydiin doonaa hadduu aad ka raadin taasna waxay la micno tahay nambarka aad qabsatid su-aasha ku jirto in adiga aad doorato su-aasha lagu weydiin lahaa nambarada hadda miiska noo saaran waa nambar 1 3 4 5 lambar 5 nambar 5 waxaa ku xusan waxaa sheegtaa saxaabigii ugu horreeyay ee islaamka salaad jumcad tujiyo haddaa isku dayo ascad bin suraara waa mahadsan tahay balse mada haleelin jawaabta saxda hadiyad aan mikrofonka u weeciyo kusoo dhawo barnaamijka waa ku dhawahay magacaaga iyo sida aad u aragto barnaamijka magacaygu waa cabdirasaaq cabdille waxaa u arkaa si wanaagsan cabdirasaaq sidaad ka warayso barnaamijka waa nasiib oo nambarka aad qabsatid su-aasha ku jirta baan ku weydiin doonaa taasi macnaheedu waa su-aasha lagu weydiiyey adiga gacantaada ku doortay haddaba nambarka aad qabsan lahayd 1 3 4 5 nambar 2 u baxay 1 3 4 5 nambar 3 nambar 3 waxaa ku xusan waxaa sheegtaa diyaaraddii jarmalka ahayd ee soomaaliya badbaadisay sanadkii uu ahaa 1968 waa mahadsan tahay balse maad haleelin jawaabta saxda waa hagaag weli waxaynu dhex mushaaxaynaa barnaamijkii hoo hadiyad oo qaybihiisi dhex aanu marayno waxa aan filayaa in su-aalihii laga jawaabay aad ka faa'iideen oo aqoon kororsi ayna idin noqotay bal haatanna aan ka qayb qaata xiga barnaamijkeenna mikrofonka ku soo dhaweeyo magaciisa iyo siduu barnaamijku arko magacayga waa cumar saciid cabdiraxmaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijka cumar inta badan inaad barnaamijka xiseenaysay way kaa muuqataa oo xilliyo fara badan innaga oo barnaamij ku jirno zaid waa raadin jiray maanta nasiib aan ku helay
adiga oo bajaajtaada wataa meel walba barnaamijka bajaajkayga wato meel walba maraayo waa tahay waa ku faraxsanaa ugu dambeyn inaad qayb ka noqoto barnaamijka ood nasiib aad u yeelata cumar barnaamijka sidaad la socoto waa nasiib oo nambarka aad qabsatid su-aasha ku jirta aan ku weydiin doonaa hadduu aad ka raali noqdo su-aasha nambarada hadda miska noo saaran waa nambar 1 3 4 iyo 5 nambarka nasiibkaaga lambar 1 nambar 1 waxaa ku xusan waxaa sheegtaa shanta nabi ee ulul casmiga ah ama ulul casmiga la isku dhafo shanta nabi ulul casmiga waa nabi daawud nabi ayuub iyo nabi suleymaan nabi maxamed iyo nabi ibraahim waa mahadsan tahay balse maadan wada haleelin marka waan kaaga mahad celinayna ka qaadashada isbeddelka barnaamijka waa hagaag bal ka qayb qaata xiga barnaamijkeena hoo hadiyad aan mikrofoonka u waciyo magaciisa sida barnaamijku arag magacaygu waa cabdimajiid cabdiqaadir cali aad ugu faraxsanahay barnaamijka waa meel dheer ugu soo carar cabdimajiid barnaamijka waa nasiib waa nambarka aad qabsatid su-aasha ku xusan buu ku weydiin doonaa hadduu aad ka raali noqdo su-aalaha hadda miiska noo saaran ama nambarada miiska noo saaran ee noo haray waa nambar 1 3 4 iyo 5 nambarka nasiibkaaga ah bal qabso 4 nambar 4 waxaa ku xusan waxaa sheegtaa shan tiro oo haddii la isku daro wadartoodu ay tahay 100 shan tiro oo isku xigto oo haddii la isku daro wadartoodu ay tahay 100 waa 30 20 afar tiro la sheegay shan tiro la yiraahdo labaatan tobanishan meesha la waa tahay ka qayb qaataha xiga barnaamijkeena aan ku soo dhaweeyo mikrofoonka ku soo dhawow walaal magacaaga iyo barnaamijka sidaad u aragto waa dhowahay magacaygu waa maxamed ibraahim beyle oo ku faraxsanahay barnaamijka maalin roobaad inaan nasiib u yeesho inaan ka mid noqdo insha Allah maxamed ibraahim beyle waan ku faraxsanahay anaga inaad qayb ka noqoto haddii aan kula yara kaftamo beyle waxaad la hadda wasiirkii oo maaliyadda ma meesha ku soo istaagay niyo wasiirkii ma laakiin fanaankii waa fanaan ku soo dhawow barnaamijka waadiyada Arstan TV qaabka aad u aragta barnaamijka iyo sida wallahi barnaamij positive aan warkaa bulshadana nasiibkooda ku tijaabinayaan cilmigiina lagu xasuusanayo maxaa yeelay hadda meesha waxaa iga muuqday in la kala faa'iideysanayo marka waxaan rajeynayaa in aan ka mid noqon doono insha Allah sida aad la socoto barnaamijka waxaan filayaa inaad in badan ka wareyso oo xogtiisa aad hayso barnaamijka waa nasiib oo nambarka aad qabsatid su'aasha ku jirtaan ku weydiin doonaa aad ka raadlo nambarada hadda miiska noo saaran waa nambar 1 3 4 iyo 5 nambarka nasiibkaaga iyo aniga waa kuwa tara jecla number 4 oo marka ciyaaraysidna number 4 xirtaa miya niyo waa si fooda u xirtaa mararka qaar inkastoo aan qabdhax ciyaar fooda waxaana u xirtaa waa tahay bayle nambarka afaraad waxaa ku jirto nambar xisaab ah ama tiro waxa ay tahay sheeg 5 tiro oo isku xigto haddii la isku daro 5 tiro oo isku xigto oo markii la isku daro keenaysa 100 wallahi niyo markii aan yaraan hooyo iyo macallinkii waxay dhigi jireen xisaabta ku fiican tahay markii xisaabta markaa maskaxda dib ugu celiyo waa xasuustaa 5 tiro oo isku xigto oo markii la isku daro 100 soo ma waxaan u maleynayaa inay tahay 18 19 20 21 22 boqolkii inay xiriirsan jeclahay waa kulida waxbarashadaada ma xisaaba mise niyo maamulkii maareynta waaye laakiin xisaabta waa ku fiicnaa waqti badanaa liigu geliyaa waqti badanaa ku fiicnaa okay marka maxaad isleedahay jawaabtaada way saxanta baad isleedahay bal isku keen dardar wallahi dadku ay u xaqiiqsadaan in jawaab saxan aad bixinaysid niyo isku keen dardarka dadka qaar xisaabta ku adag tahay kaliya ahaan inay lacagta ahaan inay tirsadaan ma ahe sida kale xisaabta ay u nacab yihiin niyo 18 iyo 19 iyo 20 iyo 21 iyo 22 waaye 18 marka lagu daro 19 waa 37
marka lagu daro 20 waa 57 marka lagu daro 21 waa 78 marka lagu daro 22 waa 100 waa 100 maadaama aad halashay Mr. Bella jawaabta su'aashii nambarka afraad ku jirtay ama tirada ahayd xisaabta maxaad isleedahay waa ku guulaysatay ama waad haleeli doontaa maadaama xisaabtan aad dadka inta badan ay ku wareereen oo iskuuna noqonayeen wallahi markii aan isbarbar dhigo TV-ga programka bixinayo oo TV caalamiya maanta oo maalin roobaada su'aasha oo xisaab ahayd waliba dad badan ay qaldeen wax weyn aan filaa waa hagaag daawadayaal maadaama ka qaybqaataha uu haleelay jawaabta saxda ah waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay Astaan TV bal aan aragno anigii idinkaba hal mar aan wada aragno waxa uu ku guuleystay nambarka afraad abaalmarinta ee ku xusneed maadaama uu haleelay ka qaybqaataha jawaabta saxda ah waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay Astaan TV waliba abaalmarintaas oo ku xusneed nambarka afraad waxa uu nasiib u yeeshay receiver Astaan ah waxaan filayaa in caawa iyo habeenno kale fara badan baad ka faa'iideysan doonto oo aad noqon doonto macaamiisha ugu firfircoon ee Astaan TV waxaan rajaynayaa anigana in macaamiisha ugu waaweyn aan ka mid noqon doono insha Allah waa tahay kal qaybqaataha xiga barnaamijkeena aan mikrofoonku waciyo magacaaga iyo sidaad barnaamijku aragto walaal magacaygu waa Cabdicasiis Saaq Axmed barnaamijkan oo ku faraxsanahay ka qayb qaadashadiisa Cabdicasiis barnaamijku waa nasiib oo nambarka aad qabsatay su'aasha ku jirtan ku weydiin doonaa haddii aad ka raali noqoto nambarada hadda miska noo saaran waa nambar 1 3 iyo 5 nambar 1 nambar 1 waxa ku xusan waxaad sheegtaa shanta nabi ee ulul casmiga nabiyada ku xusan daa isku dayo waxa waaye nabiyullaahi nuux alayhi salaam nabiyullaahi ibraahim alayhi salaam nabiyullaahi muusa alayhi salaam nabiyullaahi ciisa alayhi salaam iyo nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad ka qayb qaataan jawaabta uu ka bixiyay su'aasha weydiinaha sheeg shanta nabi ee ulul casmiga jawaabta uu ka bixiyay waa sax ah waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay Astaan TV maadaama ka qayb qaataa oo haleelay jawaabta saxda ah su'aasha aan weydiinay waxa uu leeyahay abaalmarinta ugu talagashay Astaan TV ka gudub waa santa Astaan TV waa hagaag aan mikrofoonka u waciyo kuna soo dhaweeyo barnaamijka hadiyad Astaan TV ka qayb qaataa xiga barnaamijka aad iyo aad aan ugu dhawahay magacayga waa Cabdisaaq Xaaji Maxamed aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato barnaamijkan sida aad ka wareyso barnaamijka waa nasiib oo nambarka aad qabsatay su'aasha ku jirtaan ku weydiin doonaa haddii ay bakaraal su'aalaha hadda miska noo saaran ama inoo hero waa nambar 3 iyo nambar 5 nambar 3 iyo nambar 5 maano nambar 3 nambar 3 waxa ku xusan waxay sheegtaa diyaaradii laga lahaa Jarmalka ee la soo afduubtay ee Soomaaliya ay badbaadisay sanadkii badbaadisay 1965 waa santahay balsmada haleelin jawaabta waa tahay ka qayb qaata xiga barnaamijkeena aan mikrofoonku waciyo magaciisa iyo sida barnaamijku arko السلام عليكم والأذى وما صنع إن كغب قعدته برنامج كوسيال ودينتا مركل واد مية دانكور راعي ومحمد علي حسن السبرية ولو يغني مستر قصفتي هذا الموضوع حسنا وجعل الله إن برنامج كان سؤالان كذا مستر كونسبت أرضي أكون أيدي مجلس أوكي مستر كونسبت هذه barnaamijka wax yar kaaga tafaasilina ama ku faano waa nasiib oo nambarka aad qabsatay su'aasha ku jirtan taas waxay la macno tahay in nambarka aad qabsatay ama su'aasha lagu weydiin lahaa adiga aad dooratay hadda waxa miiska noo saaran waa nambar 3 iyo nambar 5 nambarka nasiibkaaga nambar 3 iyo 5 labaas waa nambar 3 aan qabsanaa 3 waxa ku xusan diyaaradii Jarmalka laga lahaa soo afduubteen qaar ka tirsan ururka Xamaas oo Soomaaliya la keenay sanadkii la soo afduubtay oo Soomaaliya ay badbaadisay su'aashaas ma la bedeli karaa mise waa 1900 shanti ama santahay isku dagaaga balse mad haleelin jawaabta saxda waa hagaag balka qayb qaata xiga barnaamijkeena oo hadii aan mikrofoonku ku soo dhaweeyo magaciisa sidoo waa ku dhawaay barnaamijka waa ku dhawaay magacayga waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdicasiis aad aan ugu faraxsanahay barnaamijkan Astaan TV ee noo soo bandhigtay dhalinyaradana aad ay u anface horumar wacan aan leeyahay Astaan TV Cabdiraxmaan annagana oo faraxsanahay inaad qayb ka noqoto barnaamijka maanta haddii aan kula yara kaftamo mikrofoonka aniga ku hayo
واي dadku u jeceliin Soomaalida inay ku dhadhagaan microphone-ka inta badan macnaha dadka microphone-ka ku hadalkiisa ku yar marka waxay isdhaan in macnaha in lagu dhageeyo macnaha iska jeceliin waa tahay aan ka gudubno inta sare kaftanka barnaamijka sida aad la socoto waa nasiib oo numberka aad qabsatid oo aad ku jirtaan fiidinteena numberada hadda miiska noo saaran waa number 3 iyo 5 sax number 3 number 3 waxaa ku xigta waxaa sheegtaa sanadkii diyaaradii Jarmalkeed ee la soo afduubtay ee Soomaaliya ay badbaadisay sanadku ahaa wallahi wax walba isku day waa inkastoo aniga macnaha hadirtaan aan xiliyadaas aan soo maqlay laakiin macnaha aanan joogin laakiin haddaan isku dayo waxay isla 1974 هذا أنا وحاسس إنك حلقة سويت ما دام جوابتها بحلقة مايا حلقة وحاول بدنا دتكي هوري أدل أشيك سد وحول بعدين معنا وخمس وفر ده مركب وحول بينا اسكودي ساقرحان بعدين هذا معنا سيدا هذا الكاغا كده حسن كرنو دتكي هورا أنت بدل لا شك استوت الغلطة بدنا دلنيرة هذا دلنيرة لا شك سنة عم صاحبي إلا دقنا أنا وكتبنا بدنا ضياشي دتكي هوري روح كبير صاحبي الله تعالى شك تدادي سمنوخ والله روح وير على شيكستو هندس أفرتنيشان أو صاحبك عندي كرادرتان أفرتنيشان كأذيك ده أذر أذيك ده إذا إنكستو حاجة ده اللي ويدي إيشان كفي حرير هذا هذيك لواتك ما لا كستو حصل أنا وديك سيرين لا واتل كركبير نواتاي داود يال أنكسو قدومنا كفتن كير نحتالك كغيب قاتها مدام وهلا جوابت الساحة سؤال ودينا هاد شاك سندكي بدبادسي ديارتي جرمالكهاد لسoo afduubtay waliba Soomaaliya la keenay sanadkii badbaadisay jawaabtu ku bixiyay masaaxa waa 1974 walaw anagu aan islahayn xilligaas uu joogay Cabdiraxmaan balse ugu dambeyn uu naga qarxiyay inuu san xilligaas asaga joogin ee dadka asxaabtiisa inta badan uu dhow yahay ama la shaqeysta xigmadaha uu ka arursaday yihiin dad xilligaas joogay waxa uu leeyahay abaalmarinta numberkaas ay xambaarsanayd haatan waa guddoonsiin doonaa dadka maadaama su'aal taariikhi ahayd abaalmarinta ku xusneed ee ugu talagashay shirkadda Sumac Electronic in la guddoonsiiyo ruuxii haleela jawaabta saxda ah waatan aan gacanta ku hayno maxaad leedahay waa ku jiri karaa wallahi run ahaantii baalkan waa qalab electronic wax walba ku jiri kara laakiin ma bacdan hadda gacanta ku hay waxa isleedahay uu ku jiri karaa oo adiga abaalmarin ahaan aad hesho wallahi waxa isleeyahay baalkan kuleelisada macnaha cuntada fudud lagu kuleelisay cuntada fudud oo aad u rajaynayso inaad heshid badna macnaha waa dhalinyarada dilay ama iskaabul hadana qaastan la siiyay waxyaabaha aan anfacay kamid ah guriga iska dhigano macnaha dooniga aan isticmaalo waa tahay nambalyan ku leenahay oo guuleysatay bal noo soo yarbixi si aan u aragno aniga iyo daawadayaashaba waxaad ku guuleysatay waxaad rajaynaysaa inuu yahay in wax kale ka wanaagsan uu yahay okay انت كسي في عدا واحد درتنا رادنا مركله كبدن او معنا ان ka faa'iideysta rajayna insha Allah adu ilaahay raado ma santahay ka qayb qaadashadaadiisa waa hagaag daawadayaal waxaanu maraynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka kaliya waxa inoo haray waa hal su'aal su'aashaas ah sheeg saxaabiga ugu horeeyay islaamka jamaacadu tujiyo ama salaada jumcada tujiyo adigu naftirkaaga bal sii raadi oo isku day inaad jawaabta haleesho aanu gudbo ka qayb qaata xiga barnaamijkeena microphone-kana uu waciyo magaciisa iyo sida barnaamijku arko ku soo dhawo barnaamijka hadiyada Stan TV waa ku dhawaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad aan iga mahadcelinaa Stan TV barnaamijka quruxda badan leh soo aawisheen magacaygu waa maxamed xaaji aadan su'aasha jawaabteeda isku dayo waa Abubakar Sidiq maxamed waa mahadsan tahay balse ma haleelin jawaabta saxda ah isku day balaan ka qayb qaata xiga barnaamijkeena ku soo dhaweeyo microphone-ka okay waa dhawe magacaaga iyo sidaad barnaamijku aragto horta ugu horeen magacayga waa xasan isaaq maxamed barnaamijkana kuley baa ku soo dhaweey xasan microphone-ka aniga ku hayo adigu mahadsan kaliya waxaad nagu caawisaa hadalkaaga okay microphone-ka aniga gacanta kugu hayo okay kuley waa ku soo dhawahay maadaama Stan TV ay su'aal ay weydiiyaan kuley su'aasha ay weydiisana kuley diyaar u ah kuley inaan ka jawaabo
su-aasha ugu dambaysa ee barnaamijkeena maanta waana su-aasha nambarka 5 ku jirto waxa ay leedahay waxaa sheegtaa saxaabigii ugu horeeyay ee islaamka salaad jumcada tujiyay okay su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayo saxaabiga cumar bin khataab radiallahu canhu waa maasanta xasan balse maada haleelin jawaabta saxda ah waan kaaga mahad celinayna ka qaadashada barnaamijka isku dagaaga wanaagsan waa tahay ka qayb qaataha xiga barnaamijkeena how haddii aan mikrofon ku weeciyo magacayga waa cabdisalaam cabdulaahi oo degan dabka cabdisalaam barnaamijka waa how hadiyad oo waa nasiib nambarkaad qabsatay su-aasha ku jirtaan ku weydiin doonaa hadduu eebagaraale noqdo waxaa miiska noo saaran waa su-aasha ugu dambaysa barnaamijka su-aasha nambarka 5 ku xusan waxa ay tahay waxaad sheegtaa saxaabiga ugu horeeyay ee salaada jumcada tujiyo islaamka jawaabta su-aasha saddeed ma siiso waxaad noo soo xiri doontaa barnaamijkeena maanta haddiise aad na siin weyso waxaad fursad u siin doontaa asxaabta kale ee barnaamijka jeclana ka qaata su-aasha haddaad isku dayo jawaabteeda waxay noqonaysaa sacad bin sulaala sacad bin sulaala sacad bin suraara waa hagaag daawadayaal jawaabta inay sax tahay in kale bal aan mar kale ku celinahay ma hubtaa inay jawaabtaada sax waa sacad bin sulaara oo ka noqosho ma boolihid maya oo asku kalsoon tahay oo kalsoonaya maxaad filanaysaa marka inaan ku dhihi doono waxaan filanayaa mataqaanaa inaan mataqaanaa su-aashan jawaabteeda inaa isix doonto inaan sax aad ku dhihi doonto oo haddiid aad heli doonto weliba abaalmarin aad ku qaadan doonto sax taas aad misanaya waa hagaag daawadayaal idinkuna maxaad filanaysaan bal noo sheega waan u jeednaa weli fariintiin ima soo gaarsiinaysaan balse ka qayb qaataan jawaabta uu ka bixiyo waa mid sax ah oo saxaabiga ugu horeeyay ee salaad jumcada tujiya islaamka wuxuu ahaa sacad bin suraara waxa uuna leeyahay abaalmarintii nambarkaas 5 uu watay ama nambarka 5 su-aasha ku xusan abaalmarintii ay xambaarsaneed haatan oo guddoonsiin doonaa hadduu eebakaraal noqdo bal mikrofonka iqow uma leen mikrofonka inaad ku guulaysatay maya wixii bacda ku jira guulaysta sugaya oo inaad mikrofonka ku guulaysato diidan tahay maya mikrofonka qofka guulaysiga ka hadlaa bis aywa mikrofonka igi soo celi waa tahay daawadayaal bal ka qayb qaatahan maadaama uu haleelo jawaabta saxda ah oo ahayd sheeg su-aasha nambarka 5 oo ahayd sheeg saxaabigii tujiyey salaada ugu horeysay jimcaha islaamka jawaabta uu ka bixiyey waa mid sax ah waa sacad bin suraara waxaanu leeyahay abaalmarinta ugu tala gashay astaan tv iyo weliba sumaga oo barnaamijkan taabagelisay qayb weynna ka ah abaalmarimaha aan bixinaynana soo diyaarisay aad baa umahadsantahay astaan tv haddaad tihiin waxa waaye ku faraxsanahay waxyaaba abaalmarinta noo siiseen waxaa sii rajeynaa had kadib inaad sii wadi doontaan su-aalahan aqoon guudka ah oo hadda mana tusisme waxaa ku guulaysatay mise waa naga qarsanaysaa waxaa ku guulaystay dad kale oo u dhiiradaan waxaa ku guulaystay maxaa lahay kolley baakadaas waxa ku jiro annaga ma ogin ma naqaano waa mahadsan tahay soo dhawaab kaaga mahad celinayna ka qaadashada barnaamijka waa tahay daawadayaal barnaamijkii quruxda badnaa ee hew hadiyad qaybtiisa maanta waa naga intaa aad buu u xiisa badnaa abaalmarinihii aan ugu talagalnay iyo su-aalihii aan soo diyaarinayna waa laga faa'iidaystay oo dad baa haleelay idinkuna aqoon kororsi bay idiin noqotay intiina daawanaysa barnaamijkan oo waad ka faa'iideen waxaa idin leeyahay ramadaan kariim afur wanaagsan oo walaalkiin yuusuf islaam oo idin leh sidaa ay nabadgelyo oo koolinti dambe oo xiise leh